Qaybtii koowaad waxay noo maraysaa gabadha yarta oo wax lagu akhrinayo si ay qolada shayaadiinta uga mid noqoto. Ku soo dhawaaw qaybta labaad. Kooxda shayaadiintu waa kuwa faraxsan, gabadha yartahayna waa mid u taagan. Midii weyneed ee shaydaanta ahayd weli gabadhi ayay wejiga waxay ka marinaa gacanteeda ka marinaysaa. Diiq ayay soo qaadaysaa, madaxeeda ayayna dul marsiinaysaa. Gabadhu waa mid ka baqanaysa diiqaas dusha laga marsiinayo. 20 sano kadib maxaa dhacay? Kooxda shayaadiintu waa sidoodii. Ninka carwadan u imaanayaa si uu dhar uga gato. Waxaanu doonayaa shaati. Shaatiyaalka ayuu eegayaa. Dukaanka waxaa ku jira nin kale oo wax gadanaya gabar wax iibinaysa. Gabadha ayuu u yeeray wuxuuna weydiinayaa shayga qiimihiisa. Gabadhii hore shayaadiintu wateen iyo ninka is aqoonsanaya. Gabadha marka waa maanshan waxay ka tahay maamule. Ninkan hore isu aqoon jireen way is salaamayaan wayna is wareysanayaan. Waxay ku dambeeyay bal ay isweydiinayaan 10 sano ka hor ayaa isugu dambeysay. Dadka si fiican u yaqaan way ahaayeen. Nabadda si fiican isu kala qaadayaan. Wareysigu la dheeraanaya. Waxay u sheegaysaa inay iyo dukaanka maamusho. Wuxuu ka codsanayaa inuu la kulmi karo in kale. Waxay u sheegaysaa in ay xafiis ay leedahay meesha oo ay kula kulmi karto hadduu u baahdo. Hadda gabadha meeshaan bay keentay. Wareysigooda ayaa bilaabanaya. Soo dhawaa bay leedahay. Wuxuu leeyahay xilli hore baa igu kaa dambeysay. Waxaan san doonayaa maanta inaan shay kuu sheego. Laakiin ma garanayo sida aan kuugu sheego ayuu leeyahay. Wuxuu leeyahay xilligii hore igu kaa dambeysay aad baan kuu jeclaa. Waana is weynay. Gabadha waxay leedahay wax dhib male caadi ma dhib male. Dadku waa isbartaan waana is waayaan. Gabadha iyada caadi ka tahay laakiin ninka sheeka dhaba ayuu ka hadlayaa. Ma iibsan karaa buu leeyahay. Ma isguursan karnaa. iyada marka gabadha xoog qoslaysaa waxay leedahay waxaan sheeka dhabka ah miyaa dhaba iga tahay buu leeyahay. iyada waxay leedahay guurka iyo arrimaha dhan aad baan ugu wareeray. Maskaxda iga galeen. Mama ku caajisay bay leedahay arrintan guurka markii la sheego. Gabadhan waxay ku soo laabanaysaa kooxdii shayaadiinta si ay ula soo wadaagto arrinta ku timid ee ah in guur laga dalbaday.
habarta shahaadiinta ay u sheegaysaa waxay leedahay nin baan jeclahay ma guursan karaa. aad baad u qaldantahay ay leedahay. ma guursan kartid ilaa adiga waar nii jabsan tahay, qof xoolo cifaadna tahay, qof bini aadanna ma guursan kartid. doqon baa tahay bay leedahay, inaad waxaas oo kale ila timaadana ma ahayn. mana guursan kartid noloshaada inta ka dhiman, waxaana isku dayay inaad guursatid. kuwa kalena waa kuwa ku qoslaya, iyaduna waxay leedahay sabab maxaan dhacay, maxaan u guursan karin. mar kale ha igu soo celin leedahay ma guursan kartid. ha isku day inaad guursatid, dambe ha isku day inaad guursatid. gabadha waxay leedahay suurtagal maaha, maxaan u guursan karin, macquul maahan. duqdu waxay leedahay mar dambe ha igu soo celin arrintaas, sheekadaas oo kale, mar dambe ha igu soo celin hadalkaas oo kale. gabadhu aad bay u niyad jabaysaa una xanaaqaysaa. kii weynaa saaxirkaa la hadlaya, gabadha way xanaaqaysaa, way ka tegaysaa. markan waxay go'oonsanaysaa inay barnaamijkooda dhan ay isaga dhex baxdo. kii weynaa ayaa markaan jadbaynaya, kuwa kalena waa la ruxtamayaan. duqdu way xanaaqaysaa, markaan wax leediga aamusa wax hadli karaa ma jiraan. aad bay uga xanaaqday in gabadha ku hor dhaqaaqday. duqdu markana waa mid hanjabaysa shayaadaanta ah, waxayna leedahay haddaad guursatid cunug ma qaadi doontid, uur ma yeela doontid, noloshaadana kuma farxi doontid. awooddeydaan kugu qabanayaa, awooddeydaan kugu qabanayaa. gabadhii markale ayadoo nii jibsan gurigeeda dhex joogtaa. maskaxdeeda waxaa ka guuxaya ma guursanaysid. iyaduna waxay leedahay ma sidaan baan ahaanayaa, single miyaan ahaanayaa. si kelisi guriga waxaa ku soo gelaya mid kale oo saaxiriinta ka mid ah, waxayna leedahay talaan kuu wadaa, hana isku guursan. dhibsi uusa kugu soo gaarin ha guursan. iyaduna waxay leedahay aniga miyaad si nii jibinaysaa, inaad i walaacisa miyaad iigu timid, inaa i walaacisa kaa yeeli maayo. ma ogid waxaa dhacaya bay leedahay, sabab bay leedahay. ma ogtahay aabbaha sanada ka hor dhintay wixii dila ma garanaysa aabbaha. aabbaha hooyadaa hadisho miyaad dhihi rabtaa bay leedahay. su-aashaas bay weydiinaysaa. maya bay ku dhahan masaas kuma lihi. aniga waxaasoo kale ahaa ila imaan. way ku xanaaqaysaa markaan. iyadana waxay ku celinaysaa inaysan isku guursan oo talada qolada shayaadiinta saaxiriinta hadalkooda ay qaadato. iyadana waa mid aad u diidan. middan kale waxay doonaysaa inay tashkiiliso kana joojiso barnaamijka guurka ah. iyaduna waa diidanta, hadalkaa kuma socdo. awoodaan leeyahay ay tiri anigu, adiga ma awood le bay leedahay. gurigeyga ka bax bay leedahay. hadda idhaaf bay leedahay, gurigeyga ka bax. anigu talaan kuugu imaday leedahay, kuugu imaan inaan kula dagaalo. iga bax bay leedahay gurigeyga, idhaaf kuma arki karo. gabadhan way kasii walaacisay. markaa murug kale usii bilaabatay.
Ayada iyo ninkii guurka usoo bandhigtay halkaanba waxay ka gadanayaan macmacaan. Ninkii gaarigan buu wataa, daaqaduu ka furayaa, kadibna way baxayaan. Gabadha hadda kuwa saaxirinta mid gabar bareeg u qabatay maahan. Inay ninkan guursato jaceylkeeda hore sii wadata ayaa ka go'an. Laakiin siya kuwa saaxirinta ah waxay doonayaan inay gabadhan lugaha gooyaan. Waxay u socdaan meel hotel arooskooda ay rabaan inay ku diyaarsadaan. Hadda gabadhii waa guursatay, bareegna uma qaban kuwii shayaadiinta ahaa. Haddaba gabadha maxaa ku dhici doona? La soco qaybta 3.